laakiin mid xarshin ka yimi mid aw baraka yimi daariyaal ka inuu baraka yimi tusaalahaan kale imka qalbigiisa aan leeyahay gooda weyn ka yimi tusaalaha waa kuwaas uma haysto aad uga jeedaa qalbigiisa aan qalbigiisa aan leeyahay macnaha qalbigiisa cusub macnaha qalbigiisa aan leeyahay cir oo qabsaday xilka madaxtooyada ma gashay wallahi ma galina biika waa galana dhaati taasna waa nasibtaro ma ilaawina anagu dadka caalamka hoos dhashay baan nahay taariikhdan diyaaradda markii la iga sheekay wallahi wax badan baan si kay bedelay yaaniga walaaladay aabahay mujaahidiin bay ahaayeen hargeysa oo iman waayay uu gobolka ka soo doonay shaqo abuur waayo dadku problem baa ku furmaya way islaynayaan kala duwayn ma jirto waxa kala duwayn dee roob la ascaanood yimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sawirradii ugu dambeeyay uu galo waxa ka mid ahaa in madaxweynaha 34 sano dal haysta oo kali taliya lunkeena iyo shacabkeena bislaaday ee raba inay wadankooda ilaashadaan ee wada askariga ma garanaysa foodkeena eeg quruxdeena eeg nabadda taalle eeg waxa soo dhanba inaga sameysaniyo Ilaahay subhanahu haddii aanad marka horeysa salaamin waxa weeye hadalku kuma bilaabma horta madaxdaada waa inaad xaq dhowrtaa mar walba ku qanacsanahay waayo waxa weeye dalkayga tiirkayga weeye wuxuu ku dhisay dalkayga may qof kuma dhaleecin karo qabiilna madaxweynena kuma dhaleecin karo mucaarad kuma dhaleecin karo anigu mar walba waan taagay calankayga may kastana waan adeeysanahay mucaaradna mahi maxaafidna mahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteeda qaaliga waa salaamaya milkisa dunida daafaha caalamka ka joogtaan ku xiran YouTube-ka iyaga maxaa cusub podcast iyo sidoo kale page-ka wariye qayreen aadan magaalada Hargeysa maanta waxaanu weydiinay su'aasha ah maxaa eedhin meedan iyo eedhin mid hore ay ku kala duwan yihiin haddaba bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxay ku jawaabeen sida tan ugu horreyn wadi soo dhaweynaya ku soo dhawaad YouTube-ka maxaa cusub podcast eedhin meeba loo diyaar garoobaya bal eedhin meedan iyo eedhinbadii hore waxay ku kala duwan yihiin ama amba inta laga bawdhaxaysa bismillaah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn waad mahadsantahay adiga iyo janankaaga baad baanu salaamayaa aydhi meedan iyo kuwii hore horta de way isla mid wax farqiyo weyn uma dhaxayaano de dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkii laakiin waxaad moodaa inay aad iyo aad u dhaqdhaqaaq badan tahay tani ay dhaqdhaqaaq badan leedahay iyadoo aan laba gaadhin badii sidoo kale dabayaaqadii bishii hore kala baa loo dabaaldegayayba alxamdulillaah si kastoy tahayba tii hore iyo tii dambaba guul baan inoo rajaynaya hadaynu nahay Somalilandarka ilaahaynu bashbashiyo badhaadhay nagu gaarsiiyo sidaa darteedna waliba dad wax ka maqan yihiin baynu nahay hadday tahay beesha caalamka iyo hadday tahay Soomaalida inteeda kaleba waxba inaga maqan waxyaabahaana kulli tooleynaga sabab u ahayn laakiin waxba kuma raagi karaya sababta laakiin Soomaalida waxaan oran lahaa maadaama kulligeen nahay dad Soomaaliyeed haddana Soomaali kastaaba masiirkeedii haysato oo de imika Djibouti oo kale waa Soomaaliina la mid ah masiirkeedii way haysataa dad ahaan iyo dhul ahaan iyadaaba inaga yarba innaka ayaa ka badan haddana masiirkeedii dawladnimo gaar bay u haysataa imika Soomaalida koonfur kale inagu wixiina ku darsanay aynu la qaadanay midnimada haddana kala soo noqonay masiirkeedii way haysataa Soomaalida Itoobiya sidoo kale masiirkeedii way haysataa Soomaalida Kenya masiirkeedii way haysataa innaga haddaynu nahay Somalilander maxaa teena madowga geliyay ee u diiday inay iftiin iyo cadaan haato waa su'aal weeye Soomaalida la weydiinayo sidoo kalena de beesha caalamka waxaan uga baahanahay dad xornimadoodii kala dambeyntoodii dawladnimadoodii yacni aan la koobi karin horimarkooda baanu nahay waxaanu nahay Soomaalida kaliya maalin walba madaxweyne cod aqlabiyad leh oo qof iyo cod ku doorata intaas oo madaxweyne Somaliland soo martay waxaan leenahay beesha caalamka waxaanu mudanahay aan helno aan la siiyo kursigayagii anagu markii Soomaaliya anaga ugu horreeyna calan qaadanay Soomaalida Somaliland ba calan ay qaadatay ugu horeysay kursiga qaramada midoobay Soomaaliya maanta ku naalootay dhulka ku marta anaga iska leh Soomaalida koonfurta waxaan uga baahanay in loo soo celiyo waxayagii naga maqnaayo dhan la siiyo ummadda caalamkana waxaanu leenahay mudanahay xaqaan u leenahay la siiyo ummad baanu nahay karaamo leh kala dambeyn leh madaxweyne leh ciidan leh wax kasta la dee wax naga maqan aanay jirin inaan waxyaga ka helnay ayaan beesha caalamka ka sugaynaa calankaygu ka noqdo calaamada adduunka kala qaramada midoobeyntii dhexdiisa uu ka muuqdo ayaanu rajaynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo meydana waxaan leeyahay may wanaagsan aad maamulsan ugu horreyn maamulka soo dhaweynaya waxaa loo diyaar garoobayaa 18 May baltan iyo tii hore waxyaabaha ku kala duwan yihiin ama waxyaabaha soo kordhay nala wadaag bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan soo dhaweynayaa tan haddaad weydiisay tii hore iyo tan waxay ku kala duwan yihiin tan maanta nabad baa jirta
dadku way israacsan yihiin hadday bari tahay hadday galbeed tahay hadday meel kasta tahay tii hore dagaalla inagu socdo colaada inagu socday arrimo madaxweyne yar barakaysanna weyna haystay hadda cabdiraxmaan daacad baa inoo yimi meel walba nabadeeye maxaabiistii inoo soo dejiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin baanu leenahay fariinta bulshada heer Soomaaliland fariinta u diraysaa maxay fariinta waxaan dirayaa inay israacaan isku duubni nabad wadankooda ay adkaystaan 18 Mayna waxa leeyahay guul aad maxaa cusub podcast ku soo dhaweynaya eedhiin meedan iyo dhimiyadii hore farqiga u dhaxeeya ma waxay ku kala duwan yihiin والله لبدا ay dhiimay waxay ku kala duwan yihiin xifaaltanka gobolada Soomaaliland oo mar meel isku soo baxayo kala duwan yihiin ya khayriyadiyo sida loo ekisiyo dhisanka laga bedelay isku kala duwan yihiin yada argaabo oo maanta inkastoo dheeg faali ku dhacay laakiin si bini'aadanka loogu soo baxay ma sidii hore ahayn taasaan ku arkay in wax ku duwan yihiin aad mahadsantahay maamul gooraba ku soo dhaweynaya waxa lagu jiraa u diyaar garowgii bisha 18 May shucuurtaada ama dareenkaaga waxay ku kala duwan yihiin tan iyo kuwii hore nala wadaag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوك الله اللي وحي يقول كلا دوينهين مر والبس أو أي سوق الشمي مي عصب ما أنت معها 24 أونس وين هسه السنة دول بوي سوق ليسا أنا مر والبنكو قناع سنة واي وحوي دلك يطير كي جوي كل سيد دلك يجو مي قفكم مع دلعين كر قبلنا مدحوين لكم مر دلعين كر معارضكم مر دلعين كر أنا مر والبون تاجي على كيجا مي كستنا ون أي سنة هاي معارضنا ما هي محافظنا ما هي وحنا قفت دلك سيد دلك يسوي هالجمع يو aad u raacsan aad xumaad ku soo dhaweynaya ugu horeyn bal kala duwaanshaha 18 Maydan iyo 18 Maydii hore barayahantada ama shucuurtaada maxaad ku cabiri kartaa horta aad baan u salaamayaa adiga iyo janankaagaba 100% reer Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweynaha iyaga sharafta leh ugu horeeyo ciidanka iyaga dadka iyaga dalka iyaga aad iyo aad 100% aad baan u salaamayaa Maydan iyo Maydii hore anigu midna mucaarad ma ahayn mar walba anigu Soomaaliland darbaanahay mar walba waxaan jeclahay Soomaaliland oo mida dadka iyagoo midaysan dumarkan iyo dadkan meediyaha la taagan kala qolada iyo qaybta sideeda reer Shisaxa kala gurayana khalad baan u arkaa inuu wax laga soo saaro go'aan meel la dhigo oo dadka kala saaraya ee dhalinyarada caqdada ku beeraya dumar waaweyn rag waaweyn inay xishoodaan ayaan aad iyo aad u jeclahay janankana aad baan u salaamayaa dawladeedana aad baan u salaamayaa aad mahadsan soo dhaweynaya bal maxay dhibir ku duway magacaygu waa Maxamed Cumar marka hore shacabka Soomaaliland waan salaamayaa meel kasta oo ay joogaan marka labaad hadii ay dhiimeegan iyo ay dhigeen isbarbar dhigo ay dhiimeegii hore wax yar bay ku kala duway way sababtoo ah tan dad badan baa imka soo baxaya caalamka la inaga eegayaa marka tii horena waa la soo baxo waan joogay tan insha Allah waan eegi doonaa waxaan se leeyahay war cadowyo badan baynu leeyahay reer Soomaaliland hadaynu nahay inaynu meel ugu soo wada jiro gacmo wada jir bay wax ku wada gooyaan mahaanis wiid togoda baa gacmo wada jir bay wax ku wada gooyaan anigu waxaan doonayaa inuu dhulku dhaqaaqo oo Soomaaliya ay eegto si Soomaaliland ugu talaabsatay sababtoo calankeenu wakaa mareykanka Washington buu yaala calankeenu ma been ba saaxib marka qadiyada aad aynu adkayno doorashada waxaan jeclahay adkaynay Soomaali aan adkayno shacab iyo xukuumad madaxweynahana waxaan farayaa ilaahay la qabtee wax yar baabu haya dhiliilba ma lehe inuu ka sii kordhiyo madaxweynaha hal safar baan ku daray waxa weeye madaxweynihii safarka ku tagay imaaraadka Soomaaliland dhowr iyo kotanka dal la kulmay ee laga yaabay Soomaaliland inay dhulka gariirtay mar lamaadna insha Allah madaxweynaha waan ducaynayno waxaan doonayaa laakiin in ka baan daba soodahay dhalinyarada haw sameeyay madaxweynuhu dhaliil ma laha laakiin dhalinyarada haw sameeyay ganacsatada haw sameeyo oo kor haw qaado shaqo abuur waayo dadku problem baa ku furmaya way islaynayaan laakiin haddaad shaqo ku jeediso dadku adeer waqtiga ku yara Yurub waqtiga ku yaraada markuu shaqo tagay qof waqtiga imika dad qof tira Mareykanka kala soo aday wuxuu leeyahay waqti ii qaba xilligaasan ku soo aday marka wax bartaa kulana aqoon baan leeyahay aad baan madaxweynaha u salaamay aad iyo maasad gooraba ku soo dhaweynaya bisheedin mayba lagu jiraa diyaar garowgeedii maxay ku kala duwan yihiin tan iyo tii hore bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan salaamaya TV-ga waxay u kala duwan yihiin waxaan dhageysanayaa waxaan filayaa jimciyaha baan maleynaya khudbad jimca sheekh hadlayo culimada Soomaaliland kamid ah xubin magaciisa laga sheegi maayo yaa wuxuu yiri 5 sano boodboodin inuu dib boodbood waxtarayo bal waxa yeeshaa lacagta boodboodka hadii dhinaca kale u yar duno
ma laga yaabaa buu yidhi wax kale faa'iidaaba dee aynu ka helnaba dee wax allayaalo wax sida gabadha ka horreysa sheegtay inay u kala duwan yihiin ma jirto waxay u kala duwan yihiin dee roob la laascaanood yimi taas meel duwanaanshiyahayn waxay u kala duwan yihiin oo aan maanta kuu sheego oon ku dhahda waxaasay u kala duwan yihiin oo aan meel aan dhigo ma jirto waa heesuun baa leele heesa cusub biigkeena fankii mar laga soo noqday taana ku daraysa iyadana ku soo dhaweynaya kugu soo dhaweynaya maxaa cusub podcast YouTube-ka ama page-kan ku leenahay Facebook wariye qayreenaadan intii Soomaaliland jirtay kullee waxaan filayaa inaad intoodii badneed jirtay saakana waxaan joognaa diyaaradda hoosteedii ama eedhiin meedan sida lagu diyaar garoobo ku wareeg waxay kaga duwan tahay bal saaka fikradaada ama ra'yahantaada maxaad bismillaahir rahmaanir rahiim waa soo dhaweynaya saaxiib YouTube-kaaga iyo channel-kaba magacaygu waa Ibrahim Cali Muuse run ahaantii tiimeedyadii hore iyo tiimeedan waxay ku kala duwan yihiin bay la tahay tiimeedii ayadoo laba gaadhinba oo bishii Abriil lagu jiro ayaa la sii dabaaldegayay oo calamaanta la sii iibsanayo oo si weyn loo sii abaabulka ka dareemaysay tiimeedii inkoo raantii maanta ku jirno raantii bisha aan ku jirno oo bisha ay fartahay ayaad aragtaa waxaad moodaa inaad waxa weeyaan maalin ama laba ka hadhaysan yihiin tiimeedii waayo waxa weeyaan waad aragtaa sida loo dabaaldegay sida calamaantii ma qoranaysaa calamaantii loo iibsanayo runtii aad iyo aad bay waxa weeyaan ay qabanqaabadu u sarreysaa waan leeyahay ay uga sarreysaa tiimeedii hore runtii oo aad moodaa inay ka xamaasad badan tahay kuwii hore tiimeedii hore inay ka waxa weeyaan ka xamaasad badan wax saameyn oo gaar adiga ma kugu leedahay dhirmid runtii haa oo waa tiimeedii ugu horeysay aan wala halkan aan Hargeysa joogo insha Allah ayaan rajaynayaa oo aan si wacan run ahaantii aan ugu dabaaldegi doono run ahaantii ayaan rajaynayaa insha Allah marka taas waxa weeyaan aniga waxa weeyay khaasa Hargeysa inaan tiimeedan aan ku ciido insha Allah oo ku xuso waxaan leeyahay happy teamay heer Soomaaliland dhamaantood meel kasta ay joogaan nabadda iyo xalsoonolida iyo xuquuqda dadka waxa weey shacabka isjecel ee walaalaha waxaan leeyahay Soomaaliland meel kasta ay joogaan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi dal iyo dibad meel walba waxaan leeyahay happy teammate baan leeyahay aad u mahadsan dhimid hore maamo maxay ku kala duwan yihiin barayagaaga mashruurtaada la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anu magacaygu Ruqiya Xaaji Hayba uu yahay 18 Meygii hore iyo kan kii hore maan joogin laakiin sakan in general markaad ka eegto way ka xasaasiyad badan tahay kii hore maxay tahay sababtoo waxay tahay xasaasiyadu independent-keeni bay noo saaran adduunyada dhan bay wada eegaysaa magaceeni kor buu u baxay dadkii hore in ka badan baynu cadowgii hore in ka badan baynu yeelanay ma garanaysaa marka imika qof walba adduunka inta waxa laga hadlayaa Somaliland iyo buqaadka Ilaahay ni siiyeen ku naalo ma sha Allah tabaarakallah ma sha Allah Ilaahay bayni siiyeen cidina naga qaadi karto laakiin saanu shacabka reer Somaliland waxaan jecelahay inaynu si wanaagsan oo qurux badan inta ugu dabaaldegno way tii hore waxay kaga duwan tahay maanta taagani cid walba inaga hadal haysa waa liin eegay adduunka oo dhan bayna wada eegaya nin walba way noo soo dheeranaya waxa leeynagu jira rays baa leeynagu jira nin walba uu leeyahay wadanka wuxuu ku darsan kartaa maanta inagu cid ma baahnin inaga cid walba ka sarreeyna ma sha Allah tabaarakallah badaheena cas iyo kalluunkeena iyo shacabkeena bislaaday ee raba inay wadankooda ilaashadaan ee wada askariga ma garanaysaa foodkeena eeg quruxdeena eeg nabadda taalle eeg waxaasoo dhan ba inaga samaysanay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka waxay noogu duwan tahay maanta independent-keeni baa qarkay noo saaran ilaahayna hay noo fududeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabkuna mid ha wada ahaado assalaamu calaykum gooreen waa ku soo dhaweynayaa eedhinmeedii hore iyo eedhinmeedan cusub ee hadda loo diyaar garoobayaa maxay ku kala duwan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim horta TV-ga waa salaamaya horta waa maalin qaaliya 18 May inagu qaaliya waxa weeye horta waxaan hambaliyo halkan u marinayaa afarta madaxweyne ka nool 6 madaxweyne wadanka soo maray labadii madaxweyne ee geeriyoodayna Ilaahay naxariistii janno ayaan Ilaahay u weydiinayaa Ilaahay godka ku janneeyo madaxdaada hadii aanad marka horeysa salaamin waxa weeye
hadalku kuma bilaabma horta madaxdaada waa inaad xaq dhowrtaa eedhinmeydani waa isku mid laakiin in yarun bay ku kala duwan yihiin intaa yar ay ku kala duwan yihiin waxa weeye nabadda imanka ilaahayna siiyey wax walbana maxaa qofur raxiimku ma bixiya shakhsi ama qof waxba ma keeno ummaddu waxaad moodaa in ay iska dhaadhiciso marka dawladdu isbedelaan in dawladdu wax keento sidaa ictiraaf kale aynaan u deedayna ilaahay ictiraaf inoo siiyey nabadda maanta aynu haysanona ilaahay inoo siiyey ilaahay ha inoo sii wado ictiraafka aynu dabadiisa haynana ilaahay ha inooga sii badiyo halkaynu doonayno inaynu ka soo qaadano ha inooga soo qaado intaa yarun bay ku kala duwan yihiin waxaan halkan u marinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro marwada koowaad ee Soomaaliland gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gudida golaha guurtida taliyaha ciidanka qaranka taliyaha ciidanka booliska dhammaantiin halkan salaam baan idin soo marinayaa happy 18 May nabadiina aan ku noolnoona waan idin jecelahay guulaysta aad baan idin wada salaam TV-gana waa salaamaya ugu horreyn waan ku soo dhaweynayaa kugu soo dhaweeyay YouTube-ka maxaa cusub podcast bal eedhin meedan iyo eedhimadii hore maxay ku kala duwan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan hambalyeeyaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay dunida daafeeda ka joogaan eedhin May waa maalin qaran oo maalin shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqdeen qarannimadoodii oo ay kala soo noqdeen midowgii ay ku hungoobeen wixii la oran jiray shanta Soomaaliyeed oo aad moodo 34 sano aan joognay maanta in dawladda meestran noqonay oo duniduna ina ma jeeranayso isla markaana meel fiican maanta ay marayno dardaarankan anigu jeedinayo waxa weeye eedhin meedan iyo eedhimeedii hore iyo ku dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland qadiyadoodu waa mid shacabka ka soo gooday isla markaana mar ka dambeysay qulubta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad moodo inay ku sii baahayso sidoo kale waxa muuqata in cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland maleegayaan inta qadiyadda madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hagardamin lahaa maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland heer waxay maraysaa markaad u fiirsato siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sawirradii ugu dambeeyay uu galo waxa kamid ahaa in madaxweynaha 34 sano dal haysta oo kali taliya inuu ku sawirnaa isagoo 3 bilood talada dalka hayay waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed one man one vote-ka kursiga lagu gaaro maanta maraya in 6 madaxweyne oo madaxweynaha maanta talada haya uu 6 madaxweyne ay ku yimaadaan codka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waa hididiilo iyo midho ay koosteen shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland in hanaanka dawladnimada ay u bislaadaan ee dimuqraasiga ah siyaasi la mid ah shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan lahaa wariyaan kala furfurin yaan warxumata shulka iyo cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba iska soo baayo Soomaaliland maanta inay dunida ictiraaf ka helayso way muuqataa sida cadceedaas u muuqatay saxab lagu qarin kan bay u muuqataa dadaal dheerna waa loo soo galay calanka maanta aynu ku noolnahay nabadda aynu helana dhiig ba loo shubay oo lagu keenay cidina ma siin leeno ma ogola maanta wad arkaysaa nimanka koonfurta Soomaaliya degan ee kaaraha lagu ilaalinayay fashilmay waxay ka shaqeynayaan haddana hagardaamada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliland saanay dal u noqon lahay waxna kama qaban karaan oo masayrka qofka goosta waa go'aan shacab siyaasi la mid ah cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel booga soo jeesanayna waxaan ku soo ururinayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad bisil dawladnimada u bisil madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku amaanayaa iyo ciidanka qaranka iyo dhammaan mas'uuliyiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland labada golo baarlamaan sidii looga shaqeyn lahaa nabadgelyada inay noogu qabsanto oo ay noogu dhacdo xafladda maalinta qaran ee May ugu horreyn waan ku soo dhaweynayaa kugu soo YouTube-ka maxaa cusub podcast iyo page-ka aan wariye qeyreen aadan bal eedhin meedan iyo eedhin mid hore ay ku kala duwan yihiin aragtidaada waxay ku kala duwan yihiin laba madaxweyne kala duwan baa Cabdiraxmaan iyo Muuse marka hadda si gaar ah loo xuseeyo taana si gaar ah loo xuseeyay inkastoo aynu nahay dawlad kaliya Soomaaliland leeyahay waxa ay dhiin meelo kala qaar ah ma jirto Soomaaliland waa Soomaaliland ay dhiin waa ay dhiin labada madaxweyne isbedelay mooyaane
annaga ID may waa noo ID may maalintii xornimada ma ilaawina annagu dadka calanka hoos dhashay baan nahay taariikhdan diyaaradda markii la iga sheekeeyay wallahi wax badan baan si kay bedelay yaaniga walaaladay aabahay mujaahidiin bay ahaayeen youtube-ka maxaa cusub iyo page-ka wariye qayraan aadan su-aashan ku weydiinaya waxa weeye 18 meeydin iyo 18 meeydii hore iyo tan loo diyaar garoobayo farqiga u dhaxeeya ama waxyaabaha ku kala duwan nala wadaagto dareenkaaga mashuurtaada ayay mamaydan iyo tii hore wariyaha isma dhawa maxay ku kala duwan farqi inta laga dhaxeeya horta wariye qaylo waan salaamayaa iyo page-kiisa be laakiin maydan iyo tii hore de shaqo iskuma laha xukuumaddu horta way isbedeshay markii hore dalka mujaahidiin baa haystay waxa weeyaan arrimaha gudaha iyo taw sarreysaba cir iyo dhul bay waxa haystay de wadanka SNM ama si kala hadaan u dhaho raggii de wadanka xoreystay imikana de qurba joog ba haysata waa gar maxaad uga jeedaa qurba joog ba de waxa haysatay imika madaxweynuhu waa nin ruush hade waxa weeyaan nimankan de u badan oo xilalka oo dhani ilaa kuwa reeraha beri dhaweyd la siiyay xilalka nimanka soo xushay qurbahay ka yimaadeen marka imika waa niman qurba joogo maydan iyo waxan ma fahmayaanba iyagu 26 Juun iyo 18 May iyo waxan niman waa sheeka iyo xukuumadii hore ka daawan jireen moogtay maydan oo la xusayo dabadeedna waxa weeyaan imika iyagu waa koobi aan best bay odhanayaan moogtay laakiin nimankaas de way taagnaay burcay taagnaay maalintii de ma garanaysaa lagu dhawaaqay hargeysay taagnaay waxaan ku diyaaraddanay nimankiisa ay u rushaynaysay ahayn marka horta xagga dadka wada way ku kala duwantay mid kale galna way ku kala duwanto aniga horta way kala duwanto de sanadkii hore 18 horena maxaafad baan ahaa xukuumi baan ahaa badi tan imikana de waxa weeyaan mucaarad oran kari maayo mucaaradnimo qallalan uma baahniye laakiin adigu xukuumadda de imika ma garanaysaa aad isuguma fiicnin mucaaradna ma yihi xidigaha maraya laakiin marka Soomaaliland ها muwaadinimadu waan tahay waan ilaalinaya mucaarad iyo maxaafad waan ku ilaalinaya laakiin xagga xukuumadda imka shaqeynaysa waxaan horta wasay dawladdu u wadaan xukuumadda marka talinaysa ayuunba ama budget ku bixisa oo bumbuunisa oo dadka cirka marisa oo makarafoon qaadata ama waxa weeyaan ka yara seexatade marka waxa ku xidhantay in kolba xukuumadda talinaysa mid kalena waan ku sheegayaayo deebarigi hore wadanka lacag baa oo laydo mahdi buu haayo mayadii hore ma garanaysa imka no waxa laaliyo wax yaala nimankuna waa cusubyiin intii yarada oo layday markii aanu kaga tagnayna waxa weeyaan hawlo kala lagu galay oo qarmayn iyo xisaabaad baa jiray marka wallahi dadkuuna hay sabablaan baan anigu oran lahaa dadkuun sidooda ra'yigaaga weey ha ayaan anigu oran lahaa xukuumaduna de iyaduna waxa weeye ka hagran hay aad maadsan wasqabka ugu markii hore uu soo dhaweynayaa kolintii Soomaaliland jirtay waa jirtay adigu waxaanu ku sugnaay maanta diyaaradda hoosteedii bal wixii intii ku kordhay ama wixii ay edhinmeedina kaaga duwantay edhinmiyadii hore bal markii hore uu ku soo dhaweynaya wallahi horta runaantii wadanka alxamdulillaah rabbil caalamiin wadanku dadkiisu bilaayay horta runaantii wadanka Ilaahay noo barakeeyo Afrika siyaasiyiintii bay dumarka gaar ahaan dhakhtarrada aad ugu noqnoqday dhaha macdinta laga haysta marwar bay dhahnaa jiimarad baa tiba macdinta laga haysta dadka dhalay la soo dhaga jarmalka runaantii siyaasiyiinteena ilbaa ku dhacday bala waan yaabanahay siyaasiyiintu ma naga dhaxanayaan in cigaal bay ugu dhawaa runtii wanaagsan in cigaalintu qayreeda inoo fuulo iyadoo diyaaraddu qaylqayle iyadoo daayarada caasha daayara qaylqaylayso ayuu dul qaadan jiray xaqiiqadana ku sheegin jiray wuxuu yidhi war walaalayaal Soomaaliya wax ma la qaybsanaa oo micnaha ra'iisul wasaare ma qaadanaa madaxweyne ma qaadanaa calanka buluuga ma ku shaqaysanaa maanta saar ruuxdeena lagu shaqaysanaa ma ku shaqaysanaa ay adan micnihiisa yahay runtii noo sheegi jiray marka aniga tusaale ahaan kale tusaale ku shaqado ilaa 19 aanu dhashay ha qiyaastaasaan dhashay bariga la dhakhtar oo jiraan mu jirin qofka kaarka siinay mu jirin markaa runaantii ma garanaysaa de waxyaabaha wadanka ka dareemaha ka mid ah inaanay qaraabadeedu madaxtooyada aanay gelin waxyaabahan dareemaha ka mid ah marna waxaan soo maamulayay daariyaalka waxaad uga jeedaan qaraabadeedana madaxtooyada gelin de mar daariyaalana maamulayay macnaa horta qabiilada weyn madaxtooyada meel baa ka dhacday waxaan islaha waxay maamulayaa Sheekh Mustafa qaraabadiisa ma garanaysaa dalka burco ugu firfircoon bariga gobolka Sanaag oo kale ma garanaysaa waxa islaha waxay Muuse Carraa kale waa ilbax haday ku xukumaan waad ku qanacsantay haday ku xukumaan tusaale ahaan kale reer guuleedka sandalada waad ku qanacsantay laakiin mid xarshin ka yimi mid aw baraka yimi daariyaal ka aw baraka yimi tusaale ahaan kale imka reer qalbigiisa la leeyahay gooda weyn ka yimi tusaale ahaan waa kuwaas uma haysto aad uga jeedaa reer qalbigiisa la leeyahay de qalbigiisa la leeyahay macnaha qalbigiisa cusub macnaha qalbigiisa la leeyahay oo qabsaday xilka madaxtooyada ma gashay wallahi ma galina biika waa galana raati taasna waa nasib daro
laakiin ana madaxweynaha runaaantii madaxweynuhu isagoo madaxweynaha reer magaala oo diblomaasiya horta waxaan leeyahay si aan isku fahanno aan la yaabinay akademiyada diblomaasiyadda nagama soo saarine wadana la aqoonsanay ma ku dhalanay eray maskaxdeeda kalulaaba ka muuqata inta ay Soomaaliya jirtay buuq baanu dhaxalnay iyo waxaanu dhaxalnay labadii barko karaa in la cuno labadii barko turbo la cuno iyo xaafadnimo waxaan aragnay naaga burburan oo la qabsanaya xilliga suxuurta meera wali naaga saalan ka sireen weeyna dadka hashidid gabadh baa habar koodhanaysa waad qaadaysaa ee dabi koodhanaysa waad ka naxaysaa dalcad ka saaraysaa sheekh badan kale naqaamka iska tuuraysaa bis isba ku shidanaysaa ka sheekay marka waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay maadaama aad fiilan soo martay inta waxna fahansi wax fahanka ugu qaalisan dadka waxba la fahansiyo waliga la hadaad diblomaasiya qof macda shaashka la qodhay faham kuma fahmeeyay aad badan maadsan marka waxaan ka codsanay madaxweynaha Soomaaliland in diintu waa nasteexo waxaan ka codsanay xukuumadda doonaysid inay noqoto xukuumadda waxaan ka doonaynaa rodaantii inay sifaadka shinida qaadato sifaadka geedka gobka sifaadka digaaga Shiinayska waa imka biilka kale taaligelis waa nasibdara wallahi aladiim waxa ka dumarka sidibade marka biilka lagu soo yareeyo aba ninkaygu wastaadku uu de shirkadda daryeel lacag soo waayo ayuu dhawaan ayay ku tiraahdaa waa nasibdaro ee kuwan steedana dilaacisay xaqeen dharka yidii ugu soo biya marka waa nasibdaro waxaan uga jeedaa dadka xaafidul quraanka dadka jimarada dadka jaamacadaha qada ka soo baxay dadka muwaadiniinta xaafidul quraanka ayaa wanaagsan madaxtooyada in loo kaco aad badan maadsan ugu horreyn ku soo dhaweynaya YouTube-ka maxaa cusub podcast iyo page-ka wariye qayraan waxa weeye sidee baa loogu diyaar garoobay dhimaydan iyo tii hore maxay ku kala duwan yihiin aragtidaada bismillaahir rahmaanir rahiim kullee 18 May waa maalintii la soo noqoshada madax bannaanida Soomaaliland waxaanay ku kala duwan yihiin oo kaliya wax kale maaha isbedel dimuqraadi ayaa dhacay madaxweynaha cusub ayaa hadda meesha la wareegay madaxweynihii horena gurigiisa ayuu iska joogaa taasi oo aan Afrikada laga helin Soomaalidana hadalkeeda iska daa waad arkaysaan maanta Xasan Sheekh oo in lagu kari laayahay war wax qabo oo uu leeyahay dastuurkii baan bedelayaa isagoo shaar yar oo isleekaysiinayo iyo nin fiqi la yiraahdo warboodayo inuu yar waalan yahay moodo oo asroon sababnoo ninkaas waxba ka siiya shaar yar oo isleekaysiinayo dastuur uu bixiyay oo baarlamaan hor dhigto ayuu geynayaa halkana waad arkaysaa cod baa lagu helay Cabdiraxmaan intuu mucaarid hawadagoyd sidoo ugu shiday madaxweynihii hore Muuse Biixi wadagoyd dimuqraadiyad baa la sameeyay doorasho la sameeyay si nadiif ah ayaa loo kala badiyay si nadiif ah ayaa la iskugu hibeeyay kolka laga ma heli karo geeskan Afrika iyo Afrikaba kama dhacdo nidaamkan ka dhacay Soomaaliland oo waxay ku kala duwan yihiin kolkaasi waa doorashadaasi one man one vote-ka iyo nabadgelyada ee la isku dhiibay kursiga ayaan wax loo dhigaa jirin ahna mid aan laga heli karin Afrika taas waa mid maanta wad arkaysaa waxa ka taagan xamar way naga arkayna dhawaan waxba laga baqayaaba sidoo Xasan Sheekh meesha isugu dhajinayo ragii kale mucaaradkii ku kacsanaana ay diidayeen in laga faa'iideysto oo kooxdii al-shabaab ay meesha qabsato ayay u dhowdaa intuu leeyahay dastuurka isagu isleekaysiinayo isku qiyaasayo wax laga yaabaa dadkii wax la qaban lahaa ee dalka wax ka dhacsan lahaaba inay iyaguna isaga ku xumeeyaan halkaasina fakaad wanaagsan ay ka helaan al-shabaab ayaa laga yaabaa Mareykanka imiga uu sheegay dhaqaalihii uu ka goostay bini'aadanku kolka uu kursiga ku dhagana waa noocaas oo meedhan annaguna waxaan leenahay waa dhiyowtiina ka tashada oo heshiiya oo wax isla meel dhiga annagana taayada noo daayo Soomaalinimada aan ilaalino bari haddaan wax noqdo aanu adaa wax ku taraya laakiin haddaynu xin iyo xaasidu sida ninka ku caan baxay ee fiqi la yiraahdo haddaad xin iyo xaasidu halka la soo fadhido ood ku xumee imiga waxaad moodaaba in halkii uu nabadgelyo xamar ka sameyn lahaayeen ama koonfurta Soomaaliya waxaad moodaa in nabadgelyo darrada u qaybinayaan Soomaaliinteeda kale shalay way noogeen waxay yimaadeen laascaarood tabbay halkii ka shideen waxa iska hor keenay Soomaaliland iyo reer laascaanood waxa iska hor keeneen Puntland iyo reer laascaanood طب أيه كده حشد يعني ما واحد دوني هذا قبل كسرق قيبتي سبري هذين ما بالباتين وشيته واحد كلام ما هو واحد مودال كأنه بتقليه ورمر سبيل هاي اللي جوهر لها إن الدبات الصومالي ده قيبين يا بالمدة كل كام مش هسه هتان وحلقة قبرنين وحلونا هاي
haddii ay tasho waayaan ha loo taliyo gacanta qaramada midoobay dib ha loogu celiyo sidii ay 60 ahayd waana islaamiya shacbiyada Soomaaliland 18 May waa maalin dadka inaga dhaxaysa waa maalin aan dawlad lahayn mucaarad lahayn muxaafid lahayn si weyn ha loo ixtiraamo ha loogu soo baxo ha loogu diyaar galoobayaan leeyahay waa maalinta aynu qadiyadeena muujinay anigoo ah Mawlid Axmed Jibriil wassalaamu calaykum aad mahadsan ku soo dhaw YouTube maxaa cusub podcast iyo page-ka wariye qayreen aadan bal ama shucuurtada ama dareenkaaga ama ra'yahantaada ay ku kala duwan yihiin eedin meedan iyo dhanmiyadii hore bal dareenkaaga horta waxaan ku bilaabayaa magacaygu waa Abshir waxaan aad iyo aad u jecelahay horta qadiyada markan ka hadlayo qadiyada maxay tahay Soomaaliland iyo ID-meygan iyo ID-meyga hore waxay ku kala duwan yihiin ID-meyadii hore horta dhulku qallaas ku jiray oo dagaalo badan baa lagu jiray laakiin ID-meydan inkastoo rajeynayeen inuu madaxweynahan dhulka nabadeeyo oo de maxaabiis badan la isweydaarsaday oo de Xamse Cabdi Barrana uu de si bila ixtiraama uu de magarasa wuxuu Hargeysa u iman waayay uu gobolka ka soo doonay sababtaasaan la yaabanay eeg wariye waxaan ku weydiinayaa adiga su'aashaas Xamse Cabdi Barre muxuu ka soo doonay maxay ahaatay gobolka Xamse Cabdi Barre heer Soomaaliland ma ahayn ka tirsan Soomaaliya ka tirsan waayay isagoo maxay ahaatay Soomaaliya muxuu u iman waayay caasimadda uu ka soo doonay maxay ahaatay gobolka yar tuulada inuu yimaado meen hadduu doonayo maxay ahaatay inuu la tashto maxay ahaatay maxaabiis la soo eraso inuu ka tashtaabay hayduu yimaado maxay ahaatay Soomaaliland uu de magarasa halka yimaado haddaba imika siyaasadda markay ka gudbo ID-meyga hore waxay ku kala duwan yihiin ID-meygan dhulka horta nabad weeye waxaana rajeynayaa in nabadda Ilaahay noo sii xoojiyo oo noo sii balaadhiyo cirana waxaan odhan lahaa dhalinyarta shaqo abuur samee sababtoo waxaad ballan qaaday inaad shaqo abuur sameynayso wax dhalinyara oo maanta Muuse Biixi wuxuu sameeyay shaqo qaran laakiin aduu maanta wax dhalinyara oo shaqo abuur sameysay ma jirto boqol casum Cabdiraxmaan xilligaay wax lagu dhalalay miyuu leeyahay maanta maadaama wali uu boqol casum cashaad xilkaay may aanu madaxweynaha ma dhalilayo waxaana odhan maayo fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaadho share garee page-kana follow soo dhe YouTube-kana subscribe noo saar aad iyo aad bay u mahadsantihiin